kulanti haboon saaxiibayaal meel kasto oo had naga daawanaysaan oo muuqaalkani idinka soo gaarayo ku soo dhawaada war hadda soo dhacay iyo xogtii u dambeysay ee dagaalada ka socda gobolka Axmaarada qodobo aad u xiiso badan ayaad warka ku daawan doontaan kuwooda ugu waaweyn waxa ay kala yihiin maamulka Tigreega ayaa ku gacan sayday amar ka soo baxay xukuumadda federaalka ah ee Itoobiya dowladda dhexe ayaa jabhadda faano ku eedeysay in ay bandhac iyo boob u geysteen bangiyadii xafiisyadii dowladda iyo sidoo kale ay sii daayeen maxaabiis oo ay jabsadeen jeelashii ay ku xidhnaayeen dowladda ayaa xanibaad saartay dhammaan isku socodkii magaalooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin Bahardar, Gondar iyo sidoo kale Dabre Burhan iyo magaalooyin kale jabhadda faano ayaa ka hadashay arrinka diidmada ah ee ka soo baxay maamulka Tigreega ee ku aadan in dagaalka ay galaan Tigreegu kuwaasi waa qaar kamid ah qodobada ugu waaweyn ee daawan doontaan kuwaasi iyo kuwa kale oo ka xiiso badan ayaad kaga bogan doontaan muuqaalka halkan waa bogga wariye Cabdixamiid Khadka ee Facebook iyo sidoo kale barta YouTube-ka Cabdixamiid Khadka fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channel-ka sidoo kalena muuqaalkan si share gare aad iyo aad ayaad mahadsan tahay hagaag dagaal qadhaadh oo la isku faro saaray ayaa dhacay labadii maalmood ee u dambeeyay dowladda ayaana ka aamustay shalay iyo maanta dagaalka deegaanka Axmaarada duqaymo cirka iyo dhulka ah ayaa socda dowladda ayaa dhammaanba awoodii iskugu geysay gobolka Axmaarada Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa awaamiir siiyay deegaanada dalka oo ku amray in ay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro faano iyo maleeshiyadka taabacsan deegaanada dalka ayaa siyaabo kala duwan ugu jawaabay maamulka Tigreega ayaa diiday in ay ka qayb qaataan dagaalka kadib awaamirta uu siiyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed dowladda dhexe ayaa ka walacsan go'aankan ka soo baxay maamulka Tigreega saraakiisha ciidanka ee gobolkaasi Tigray ayaa ku gacan sayday amarkan oo dowladdu ku doonaysay in ciidanka Tigraygu ay ka qayb qaataan dagaalka ka socda Axmaaro geesta kale war ka soo baxay jabhadda faano oo ku saabsan arrinkan ayaa lagu yiri diidmada iyo go'aanka maamulka Tigraygu siiyay dowladda dhexe waxa uu cimri dheer siinayaa jiritaanka iyo halganka jabhadda faano iyo maleeshiyadka taabacsan waxay dowladdu goysay dhammaanba isku socodka magaalooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin Gondar, Bahardar, Dabre Burhan iyo magaalooyin kale oo ka mid ah gobolkaasi Axmaaro isgaarsiinta deegaankaasi ayaa horay u soo go'nay kadib xaaladii degdega ah ee lagu soo rogay deegaanka Axmaarada dowladda ayaa jabhadda faano ku eedeysay in ay dhaceen bangiyadii dowladda xafiisyadii iyo sidoo kale maxaabiista jeelasha oo ay jabiyeen siina daayeen duqaymaha diyaaradaha iyo hubka noocyadiisa kala duwan ay dowladdu adeegsanaysaa dagaallo aan dhamaadkooda la garanaynin ayaa deegaankaasi ka socda 80 jir Axmaar ah oo ka cararay deegaanka oo hadlay ayaa dagaalkan ku tilmaamay cadaabkii adduunka isagoo oo hadalkaasi wata ayaa waxa uu yiri weligay ma arag dagaal noocan ah xitaa dagaalkii Baadhima ee u dhaxeeyay Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea guud ahaan shacabka iyo jabhadaha gobolka Axmaarada ayaa u midoobay sidii ay xukunka looga toori lahaa xisbiga barwaaqo ee uu hogaaminayo Abiy Ahmed haddaba waxaa suuragal ah in diidmada Tigreega ee dagaalka deegaanka Axmaarada ay ku daba jirto qorshe ah deegaanka Tigreegu mar kale dagaal la soo qaado deegaanka Oromada ayaa iyaguna laba maalin ka hor galay dagaalka ciidamada gaarka ah ee Oromada ayaa laga bedelay dariiskoodii loo xidhay dariiska militariga si loogu eekaysiyo militariga ugana qayb qaataan dagaalkaasi halka Itoobiya ayaa aad u qasan lama garanayo meel oo uu ku dambeyn doono lamana saadaalin karo waa hagaag saaxiibayaal xogta ka soo korodha dagaalka Axmaarada iyo guud ahaanba wararka ugu dambeeyay ee dagaalkan Itoobiya halkan kala soco Cabdixamiid Khadka ayaan ahay saaxiibayaal waxaan idin leeyahay khadka ku jira fadlan si share gare muuqaalka mahadsanid